sidee ku noqon kartaa aftahan? sidee ku noqon kartaa aftahan? runtii waa su'aal in badan dhalinta ay YouTube-ka ka raadiyeen. aniguna waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago mawduucan oo aan ugu talagalay qof walba oo doonaya inuu noqdo aftahan. maadaama shakhsiyan aan lahayn asxaab badan kuwaasoo iga codsanaya mawduuca hadba ay doonayaan si aan uga soo hadlo, waxaan jeclaystay si iskeeya inaan su'aalaha ay walaalaha Soomaaliyeed ka raadinayaan YouTube sarjiga inaan mid idinkula wadaago. laga yaabaa kuwaas inaad ka mid tihiin raadinaya warbixintan. inaad noqotid aftahan waxaa ka horeysa inaad hesho hab macquul ah oo aad ku dooran karto ereyada aad u isticmaasho soo bandhigidda fikradahaaga. si aad u noqoto aftahan laga daba dhacay, waxaad u baahan tahay 6 arrin kuwaasoo aan idiin sheegi doono. hubaal haddii aad samaysaan waxaad noqon doontaan aftahan weyn oo laga daba dhacay, dadkuna ay ku dhiiran karin la doodistiisa. 1. isticmaalidda ereyo isleh. tani waxaan ula jeedaa isticmaalka weedh waafaqsan jumladda aad hadba isticmaalayso. doorashada kelmado isku eg una dhisan qaab la yaab leh ayaa keeni karto inaad qanciso cidda aad doonayso la sheekaysigooda ama aad danaynayso inaad fahansiiso mashruuc muhiim ku ah. xisaabta ku darso, uma baahnid inaad noqoto abwaan oo kale. muhiimadduse waxay tahay isticmaalka ereyo soo jiidasho leh. 2. weedho yar oo miisaan culus leh. tani waa isticmaalka ereyada gaagaaban ee micnaha weyn xambaarsan, kuwaasoo horey laga fahmi karo. adigay kugu xiran tahay ugu horeynba qaabka aad doonayso inaad u hadasho, balse inaad la timaado hadal kooban oo xigmad weyn xambaarsan yahay ayaa kaa dhigi karta inaad aftahan noqoto, dadkuna kugu xantaan xigmad soo jeedinta cajiibka badan. fiiro gaar inaad qososho hadal walba oo xaqiiqa gadaashiisna waxay kaa lumin doontaa waxtarka hadalkaaga. 3. cabsi la'aan oo hadalka. waa marka aad naftaada ay ku siinayso awood dhammaystiran oo socodsiin hadal qurxoona. afkaaga waa marka uu ka baqayn soo bandhigidda waxa uu doonayo inuu ka hadlo. waa waqti maskaxdaadu ay degdeg jawaabaha ku soo celiso. xawaaraheeda ayaa gaara ilaa heer su'aal walba oo lagu weydiiyo aad ilbidhiqsi gudihiisa jawaab saxa, macquul ah, xiisana leh ku bixiso, taasoo isla markii ay dadku fahmi karayaan waxtarka qaabdhismeed ee uu hadalka aftahannimada ee uu kula jecel yahay runsheeg inay kugu gaamurto. 4. aqrinta qoraalada. waa midda ugu muhiimsan ee dhisi karta buur aftahannimo oo aan jabi doonin. soo jeedinta aan idiin hayo ayaa ah in aqrinta noocay doontaba ha noqotee ay saameyn weyn u keenayso waxtarka qaab hadalkaaga, iyadoo samaynaysa aalad ku nool maskaxdaada gudaheed, taasoo keenaysa inay tafatirto nooca hadal ee hadba loo baahan yahay inaad adeegsato. afkaagu wuxuu wakhtiga loo baahan yahay si fudud ula qabsan doonaa ku dhawaaqidda ereyada muhiimka ah. markay taas dhacdana waxaa kuu kordhi doonto soo jeedintaada dahabiga ah ee xasiloonnida ku suntan markay timaado oo hadlidda sida wanaagsan ee aftahanku yahay. 5. dhegaysiga. mar kastoo aad dhegaysatay radio ama YouTube channel ka hadlaaya warbixin ay ku jiraan kelmado culculus, waxay maskaxdaadu siinayaan inay hesho feejignaan xad lahayn, taasoo si iskeed ah ay maskaxdaadu u weeleynayso ereyada kuwaasoo muhiimka ah ee ka soo gaaraya xagga dhagahaaga, kuwaasoo ay ku siin doonto maskaxdaadu qaab abaalgud ahaan
si aad adigu mustaqbalka ereyadaasi ugu kabto haddaad u baahato. hadhow markay noqoto u hadlidda qaab aftahanimadana waxay kugu sasabi doontaa maskaxdaadu inaad raadiso fursad aad ku isticmaasho ereyada saxda ah, waxaana ka mid noqon doona ereyadan kuwii in badan ay kuu keedin jirtay. dhegaysiga xigmadaha iyo hadallada wanaagsan waxay kaa dhigi doonaan inaad noqoto aftahan aan laga baxsan karin. 6. fahanka waxa aad ka hadlayso. tani waxaan ku qeexi karaa marka naftaada ay u diyaarsan tahay helidda waddooyin badan oo ay u mari karto waxa ay doonayso inay soo bandhigto. haddii fursadaha waxa aad soo jeedinayso ee ku koobmaan hal dariiq, waxaa xaqiiqa in hadalkaagu dhammaad xun yeelan doono. waxa aad ka hadlaysa markaad fahansan tahayse waxaad haysataa kalsooni badan. waxaa la jiro habab khatara oo kuu qarsan oo hadalkaagu guul weyn aad kaga keeni kartid. xitaa dadka caadiga ah markay fahansan yihiin waxay ka hadlayaan waxay u ekaan karaan kuwa aftahana. saa darteed taladu waxay tahay inaad fahansan tahay wax aad rabto inaad sheegto.